بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملك استود نقدر هانيسان halkan ina waa channelkiini cagta iyo dunida CID Pro TV wararka waraysiyadeeda waxaan u soo joogay oo aad aalaba kala socotaan xogtii ugu dambeysay dunida dacaladeeda adigoo jooga ama gurigaaga ama goobtaada shaqo ama geedka hoostiisa iyo goob kastaba maalintu waa talaada waa 18 bisha Agoosto 2026 wararka caalamka iyo CID Pro TV Amerikaanka iyo Iran ayaa siyaabo kala duwan uga hadlaya arrinta ku saabsan waqtigii dhamaaday ee heshiiskiisa afgaradka ku ekaa maalinimadii Isniintii ee shalay iyadoo aan si buuxda loo meel marin labadii bilood ee hore loogu heshiiyay carqalada badan ay jireen. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump ayaa yiri ka ogolaan mayno Iran inay iyadu u taliso arrimaha ku saabsan guud ahaanba gacanka Hormuz go'aanadeedana aanay gaari karin isagoo weliba yiri fariin ayaan u dirayaa maamulka islaamiga ee kacaanka Iran waxay ku qumantaa dib la'aan inuu isdhiibo laakiin si arrintaas waxaa si cara leh uga jawaabay sidii horeba uga jawaabi jireen mar walba iyo waqti kasta oo ku haboon maamulayaasha magaalada Tehran ee kacaanka islaamiga ee dalka Iran oo sheegay inay u darbadeen u diyaar garoobeen in ay ka hortagi doonaan weerar kasta iyo dhib kasta oo ka yimaada cadowgooda sida ay ku sheegeen oo Amerikaanka nin generaal ayaa hadlay oo sarreeyo guuto darajada ciidamada oo lagu magacaabo Yadullah Javani aana uu sheegay inay ciidamada kala duwan ee dalka Iran diyaar u yihiin inay difaacaan dalkooda taaka kamida sidii markaa loogu soo duulana loo meel marinayo loona qiimeyn doono generaalku waxa uu sheegay inay laga maarmaan tahay inay ogaadaan danaha Amerikaanka ee yaala aaga iyo guud ahaanba danaha Amerikaanku meel kasta oo ay jiraanba inay tahay in talaabo laga qaadi karo mar alla marka ay ku gardaroodaan taaka kamida iyo dhulka guud ahaanba wadanka Iran waxa kale oo hadlay afayeen oo hadlay qoliyaha islaamiga ee kacaanka Iran oo ka hadlay magaalada Tehran oo lagu magacaabo Hussein Muhibbi waxaana uu yiri waxaanu qiimeynay marka la fiiriyo guud ahaanba hantida kala duwan ee taala gobolka bariga dhexe iyo gacanka marka laga hadlayo dhinacyada tamarta saldhigyadooda dhinacyada korontada kaabayaasha dhaqaalaha iyo guud ahaanba arrimaha isgaarsiinta iyo isku xirka guud ee isgaarsiinta taasoo uu sheegay haddii ay dhacdo in la soo weeraro dalka Iran intaas aan sheegnaba in jug xoog leh ay gaari doonto taasoo markaa loo fasirtay arrinta iminka inaanay ku ekaan doonin danaha Amerikaanka kaliya ee gacanka laakiin gacanka laftiisa dalalkiisa ay wax gaari doonaan iyadoo si gaar ah loo magac dhabay laba wadan oo dalka Bahrain iyo waliba dalka Kuwait qoliyaha islaamiyiinta kacaanka Iran waxay sheegeen inay ku dadaalayeen iyagu mar walba nabadda inay u heliyaan laakiin ay la fahmi waayeen cadowgooda iyo xulafada kale oo Amerikaanka iyo kuwa la socda waxay Amerikaanku ay sheegayaan inay mar walba ay ku marmarsiyoodaan waxaynu la dagaalameynaa wadanka Iran si aanu horumar uga gaarin arrimaha nuclearka iyadoo Amerikaanku uu sheego inay waqti dheer ku qaadan doonto mar kale inay nuclear sameystaan taasoo ay qiil uga dhigayaan weeraradii hore ay ugu qaadeen inay goobaha nuclearka ee Iran ay baabi'iyeen laakiin hore ayaa saraakiil ka tirsan Iran waxay u sheegeen inaan lagu hadaaqin hadallada been abuurka oo aan la tegin goob Iran ay ku haysato marka la fiiriyo nuclearka hadallada kale ee dhilada gacanka la xiriira oo Iran iyo Amerikaanka waxa kamid Donald J. Trump inuu sheegay wadanka ay saaxiibka yihiin saldanada Oman inay weerari karaan iyagoo markaas si qiil uga dhigaya heshiiska ay la gaarayeen marka la fiiriyo dalkaasi Iran ay maalmihii ugu dambeeyaba ay wada hadlayeen Iran iyo saldanada Oman labada dhinac ay ka fadhiyaan gacanka Hormuz oo muhiim u ah dunida marka laga hadlayo marinka tamarta iyo waxyaabaha ganacsiga guud ahaanba oo shan meelood oo meel ganacsiga dunida halkaasi uu mara laakiin uu xadhibnaa 18 February ee sanadkan 2026 haddii Amerikaanku uu arkay inaan wada hadal aanu jirin isaga iyo Iran laakiin ay daawanayeen saldanada Oman iyo Iran inay dhameystireen heshiisna ay soo bandhigi karaan ayuu ka hortagay Amerikaanku sida hadalka loo dhigay isagoo ku goodinaya inay weerari karaan saldanada Oman laakiin saldanada Oman maamulayaashooda magaalada Muscat arrinka ka yimid Washington iyagoo wali waxba kama oran lama oga xaaladdu sida ay tahay Isniintii shalay ay ku ekeed labadii bilood ee lagu heshiiyay in xabadda la joojiyo la wada hadlo laakiin xabad la joojina inta la dagaalamayay oo weeraro ay jireen dhinaca Iran iyo waliba dhinaca Mareykanka balse waxaa la fiirinayaa maalmaha soo socda iyo xaaladdu sida ay tahay laakiin maamulayaasha islaamiga kacaanka Iran waxa ka go'an in ay sheegeen inay awood iyo fursad u haystaan dalkooda iyo dadkooda taaka kasto kamida cadowga Mareykanka iyo kuwa la socdaba inay ka difaaci karaan wararka ka imanaya UK waxay shaaca ka qaadeen in ra'iisul wasaaraha Andy Burnham la sheegay inuu xiriir la sameeyay marka la fiiriyo qoliyo iyagu iska dhigayay inay ka socdaan aqalka cad ee wadanka Mareykanka
qoraalle ayaa jira ra-iisul wasaaruhu uu gudbiyey isagana loo soo gudbinayo oo loo jawaabayay iyadoo la sheegay xafiiska lamber 10 Downing Street in arrintaasi ay u muuqatay ra-iisul wasaaruhu inuu la xiriirayay haweeneyda madaxda ka aqalka cad ee lagu magacaabo Susie Wiles laakiin la ogaaday mar dambe inay jiraan qoliyo iyagu matala saraakiisha sare Ameerikaanka iyo weliba meelaha kale ee dunida kuwaasi oo ayda adeegsanaya iskana dhigayo qofka markaas isagoo xilka haya arrinkan markay ogaadeen qolyaha amniga ee UK markiiba waxay joojiyeen isgaarsiintii ka dhaxaysay ra-iisul wasaaraha iyo shakhsigaasi iyadoo markiiba la wargeliyay safaaradda ay UK ku leedahay magaalada Washington safaaradda UK ee Washington qorshaheedu u ahaa inay hirgeliso isla markaasina ay la xiriirto aqalka cad si ay ugu sheegto arrinta dhacday oo ah iyadoo la matalayo haweeneyda madaxda ka aqalka cad ee Susie Wiles in xiriir lala sameeyo ra-iisul wasaare Andy Burnham maaha markii ugu horeysay ee dad iyagu magac leh ee siyaasiyiin sidaasi oo kale artificial intelligence-ga ama AI-da loo adeegsado iyadoo la iska dhigayo shakhsigii hadda ka hor ee ahayd bilo ka hor markii la iska dhigay xogayaha arrimaha dibadda ee Ameerikaanka Marco Rubio iyadoo lala xiriiray 3 wasiir arrimo dibadeed ee dibadda laakiin wadamada ay yihiin aan la sheegin arrintaasi waxaa ka digay FBI-da iyo weliba CIA-da waxaana ay sheegeen inay jiraan qolyo badan oo dunida ah oo AI-da adeegsanaya kuwaasi oo matalaya inay markaasi yihiin waxa ay markaasi ay qorayaan qolyaha kale la xiriirinaya ay markaa u fahmayaan inay yihiin kuwa saxda ah walow mar dambe ay ka shifanto baaritaano ayaa ka socda dhinaca UK iyo dhinaca Mareykanka iyadoo aakhiritaanka ay dhici karto in la ogaado dadka iyagu matalaya AI-da adeegsanaya tani intii Trump waxa ku soo laabtay xafiiska culeysyo badan ayaa jiray iyadoo markaasi dad badan oo matalaya dadaysan ahayn oo siyaasiyiinihii ay xiriiro kala duwan sameynayeen iyo arrinka kale ee dhacay bishii Maarch ee kal hore amaba sanadkii tagay 2025 markii loo shirayay oo qoliyaha amniga Mareykanka sida madaxweyne ku-xigeenka xogayaha gaashaandhigga qoliyaha amniga qaranka CIA-da FBI-da iyo la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynuhu ay isku xirteen line si ay uga sheekaystaan qaabkii sida loo weerari doono Xuutiyiinta Yemen ayaa waxaa laynka lagu soo daray nin isagu wariyaha oo caan oo ka tirsanaa magaziinka lagu magacaabo Atlantic kaasoo magaciisa magac kale lagu qalday sida la sheegay kadibna xogtii uu iska dhageystay bilow ilaa dhamaad kadibna maalmo kadib uu soo bandhigay arrintaasoo kashafaad iyo fadeexo noqotay qatarna la geliyay sida la sheegay askarta Ameerikaanka ka joogta aagaasi guud ahaanba gacanka iyo weliba dhinaca Yemen ninka arrinka ka dambeeyay lamanka isku xira wuxuu ahaa ninka madaxweyne Donald J. Trump kala talinayay xagga amniga ee Michael Waltz iyadoo shaqada laga casilay ayuu markiiba wuxuu u magacaabay safiirka Ameerikaanka ka fadhiya magaalada New York ee xarunta Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa walow arrinkaasi degdegta uu ku degdegay inuu magacaabo ay ka hortageen Congress-ka Mareykanka gaar ahaan qolyaha Republican-ka oo ay markaa Trump ay isku xisbi ahaayeen wararka ka imanaya Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxay sheegeen si xooliya inuu ku socdo faafidda cudurka Ebola kaasoo fayraskaasi uu yahay mid ku dhacaya dad badan oo degan aagga gaar ahaan gobollo dhowr oo ku yaala Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo xogtii ugu dambeysay waxay sheegaysaa dadka uu ku dhacay in ay yihiin guud ahaanba 4145 laakiin la sheegay dadka ilaa haatan u dhintay inay gaarayaan 2325 iyadoo 24 saac ugu dambeeyay kaliya 101 qof uu soo ritay waxaa hadlay Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa shakhsiga ugu sarreeya arrimaha aadanimada Tom Filiger oo sheegay markii la fiiriyay ee la eegay ee la qiimeeyay qaabkii sida u degdegayo nus saacihiiba qof inuu ku dhinto marka la fiiriyo cudurkaasi oo u dhinto wadanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo taasoo ka dhigan saacadii marka la fiiriyo 2 qofood taasoo noqonaysa arrin aad u xawliya ama si xoog leh u socota oo aan laga hortagi karin Ebola malaha marka la fiiriyo ilaa haatan talaal laakiin dagaal ayaa loogu jiraa sida talaalka loo heli lahaa iyadoo la magac dhabay 24 saac ugu dambeeyay shirkadda AstraZeneca ee UK oo la sheegay tiknoolajiyadii ay u adeegsatay marka la fiiriyo cudurka COVID-19 ka ay soo saartay AstraZeneca talaalkii ahaa in isagana la wado kan lagu magacaabo viruskan Bundibugyo in isagana wax laga qabto marka daba la fiiriyo guud ahaanba waxa uu ka xawli dheereeyaa 2018 iyo 2020 dhiiladii ugu badneed ee Ebola ee wadankan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo lagu magacaabo oo 17 jeer uu ka dhacay guud ahaanba dalkaas tan iyo 1976 taasoo ka dhigan 50kii sano ee la soo dhaafay markii 17aad halkaan nagala socotaan naga dheehanaysaan naga daawanaysaan waa CID Pro TV wararka wareysiyadii waxaan u soo joogay markana ku nasta qadar xayisiisa oo ku saabsan xarunta daaweynta ilkaha Mega Dentist
laba xarumood oo Istanbul iyo xarun Ankara ah ee waddanka Turkiga. waxaan dhammaanba bulshada lala socodsiinayaa in meega dandiista oo ku taala magaalada Istanbul laba xarumood iyo meel ku taala dalka Turkiga qaar ahaan magaalada madaxda Ankara in lagu talagalay in lagu daaweeyo cudurrada kala duwan ee ku dhaca afka taasoo macnaheedu uu yahay in lagu daweynayo si kastoo xanuunkaagu u jiro. waan qabaa waa aaminsanahay qof kasta oo Soomaaliyeed oo xanuunkaasi qaba inuu jeclaan lahaa in laga daweeyo sidaa darteed dadka ka yimaada meelaha kala duwan sida Mareykanka iyo Yurub, Australia, New Zealand, Afrika iyo Carabta dhammaantood waxay diyaar u yihiin meega dandiisti dadkan ila taageena dhinaca bidixda dhaqaatiirta buluga iyo weliba dadka kalkaaliyaasha iyo maamulkuba inay si fiican oo qiimo leh u soo dhaweeyaan sida horeba ugu soo dhaweey jireen. waan hubaa adigoo faraxsan inaad iman doontid adoo farxaddaadu ay zaa'id tahay oo mahad celinay inaad laaban doontid meel kastoo aad joogtaan yaan la moogaan inaad la xidhiirtaan meega dandiistu aad telefoonka shaashadda ka arkaysaan anigoo cagta xaajiyana farxad bay ii tahay inaan idinla wadaago muuqaalkan iyo weliba inaan idiin sheego xaaladda wanaagsan ee halka ka jirtee lagu dabiibayo ilkahaagu xanuun kastoo ay qabaan. wararka ka imanaya marka la fiiriyo dhinaca waddanka Mareykanku waxay sheegeen qolyo iyagu dimuqraadiga oo Kongareeska ka tirsanay inay dhaleeceynayaan go'aanka uu gaaray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump ee ku saabsan in wadajir military ahaan tijaabooyinkii iyo weliba arrimihii dhinaca militariga u samayn jireen Mareykanka iyo weliba South Korea in la yareeyo. arrintaasi ayaa waxay u fasireen qolyaha dimuqraadigu inay tahay arrin aan wanaagsanayn oo markaasi la wiiqi karo xiriirka u dhaxeeyay qolyaha isku jeelka ay yihiin Ameerikaanka sida waddanka South Korea. ciidamo aad u fara badan ayaa South Korea ka jooga Ameerikaanka oo lagu sheegay bilo ka hor ilaa 28,000 laakiin Donald J. Trump waxa uu yiri cayaarsiiskii military oo ay wada samayn jireen marka la fiiriyo dhinacii tababarada in la yareynayo waddankaasi South Korea. ragga ka tirsan sanadka ee hadlay ee dimuqraadiga waxaa ka mid ah Chuck Reed ninka lagu magacaabo iyo Andy Kim labaduna waxay sheegeen inaanay qumanayn in arrintaasi lagu dhaqaaqo taasoo keeni karta in fursad la siiyo bay yiraahdeen cadowga aaga sida China iyo weliba Russia iyo weliba waddanka waqooyiga Korea. waxaa kaloo hadlay shakhsi kale oo haweena oo iyaduna ka tirsan dhinaca Kongareeska oo lagu magacaabo Brimwala taasi oo sheegtay inay iyaduna aanay wanaagsanayn xiriirkii dhinaca militariga nagala dhexeeya South Korea inuu meesha ka baxo. wararku waxay sheegayaan oo dhammaan boqolyahaasi sanadka ka tirsan iyo Kongareeska ee dalka Mareykanka ee dimuqraadigu ay sheegeen waddanka South Korea cayaarsiiska iyo tababarka military ee sida joogtada loo samayn jiray haddii la wiiqo inay noqonayso fursad la siiyo cadowga sida hadalka u dhigeen. madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump ayaa barihiisa bulshada wuxuu ku qoray laba arrimood oo aad loola yaabay oo uu qiil uga dhigayo yareynta uu yareeyay in tababar wadajir ay wada sameeyaan Ameerikaanka iyo South Korea. waa midda koowaad wuxuu yiri Trump amaba uu qoray waxaanu aad isugu wanaagsannahay madaxweynaha ama hogaamiyaha waqooyiga Korea Kim Jong-un waa ninka ay haystaan South Korea oo ay Ameerikaanka saaxiib yihiin oo dhowr jeer gantaal la tijaabiyay lagu tuunsan yahay nuclear inuu haysto kana mid ah dadka ay isha gaarka ku hayaan Ameerikaanku sida Russia iyo China oo kale laakiin uu leeyahay Trump waa saaxiibkay. 3 jeer ayuu la kulmay kalkiisii hore laakiin waxa kama soo naasacadaan ujeedooyinkii ahaa in heshiis uu dhaco iyo in la wada socdo. laakiin qiilka labaad ayaa isaguna la yaab leh oo uu Trump qiil uga dhigay go'aanka ah in uu yareeyo tababarka military ee Ameerikaanku la sameeyay South Korea. oo Trump muxuu yiri waxa uu yiri markii dagaalka annaga iyo Israa'iil aan ku qaadnay Iran ayaan la hadlay madaxweynaha waddanka South Korea anigoo Trump waxaan weydiistay inay South Korea dagaalka nala gasho oo ay ciidamo u soo dirto gacanka si Iran ay noola weeraraan laakiin madaxweynaha South Korea wuxuu yiri arrinkaas anagu kuma jirno mana galayno shaqana kuma lehin. waxay marka u muuqataa oo qolyaha gaashaandhigga ka faallooday Ameerikaanka iyo qolyaha kaleba in uu ka carooday arrinkaas isaga ah ee ay gacmaha ka laabteen South Korea hogaamiyayaashooda inay gacanka arrimihiisa ay ka qayb qaataan. midda kale waxaa loo arkaa fursad in la siinayo Kim Jong-un oo loo arko inuu yahay nin haysta hubka nuclearka ee khatarta ee dadka gumaada. waxaan marka iskeenaynin madaxweynenimada Mareykanka iyo labada qodob ee uu ka dhawaajiyay oo aan u roonayn siyaasadda guud ee ka dhaxaysa Ameerikaanka iyo weliba South Korea. qodobka ugu dambeeya wararkeena iyo maanta oo Talaadaan ah waxa uu ku saabsan yahay mid ka mid ah hay'adaha xuquuqda bini'aadamka ee lagu magacaabo Fair Square ayaa maamulayaashooda waxay soo jeediyeen in laga hortago in Gianni Infantino uu u tartamo in mar kale la doorto 2027 bisha Maarch marka la dooranayo qofka madaxweynaha ama hogaamiyaha ka noqonaya ururka caalamiga ee kubadda cagta ee FIFA. qolyahaasi oo ninka madaxda ka ah Nicholas lagu magacaabo uu hadlay waa Fair Square waxay sheegeen in waqtigii uu dhamaaday maxaa yeelay bay yiraahdeen qolo walba 2 jeer ayay tahay
in la doorto laakiin iminka waxay u muuqataa tan 2016 in uu joogay ninka la yiraahdo Infantino taasoo ka dhigan 10 sanadood laakiin qolyaha taageersan Infantino waxay leeyihiin 2016 markii Infantino uu qabanayay gudoomiyaha FIFA ma ahayn in ninkii hore oo waqtiga dhameystay laakiin waqti ayuu dhameystiraya taasoo loola jeedo Sepp Blatter markii la eedeeyay masuqmaasuq wax isdabamarinay oo iscasilay inay ahayd in la sii gaarsiiyay xilka tan iyo doorashada dambe laakiin ay ku doodayaan qolyaha taageersan Infantino inaan taas la tirin laakiin qolyaha kale waxay leeyihiin mar kale sharci ahaan nidaamka u degsan xiriirka kubadda cagta ee FIFA iyo habka doorashada isma soo sharixi karo Infantino culayska Infantino wuxuu yimid tan iyo intii koobka dunida ee kubadda cagta kadib 2016 markuu dhamaaday uu soo bandhigay in maalgelin lagu sameeyo xiriirka kubadda cagta ee FIFA lacagana la sameeyo qolyo ajnabi ah oo iyagu markaasi gaar ah oo lacag haystana ay maamulka ka qayb qaataan iyo xisaabaadka laakiin ay ka biyadiideen xiriirada kala duwan ee caalamka ugu weyn yihiin xiriirka kubadda cagta ee reer Yurub ee UEFA xiriirka kubadda cagta AFC ee Asia iyo xiriirka kubadda cagta ee waqooyiga ee bartamaha iyo Caribbean-ka oo saddexdooda ka biyadiiday gooyana xiriirkii ay la lahaayeen marka la fiiriyo Infantino taasi waxa ay keentay culays xoog leh inuu ku soo kordhay rajadiisana inay mugdi ku jirto marka la fiiriyo tartanka lagu qaban doono 2027 bisha Maarch boqortooyada Morocco wixii warar ay ku saabsan arrimahaas iyo wararka kaleba CID Pro TV ayaad kala socon karaysaan subscribe xagga YouTube-ka Facebook iyo waliba TikTok si aan warnaba ku dhaafin oo aadan isu oran maxaa la sheegay maxaa la yiri saaki iyo galabta iyo duhurnimadii iyo wixii lamid ah tan iyo kulan dambe Maxamed Axmed Xaaji Maxamed Cagmadhige iyo bahda wararka CID Pro TV isku duubanay waxay idin leeyihiin kalama aanan tagin nagala socda wararka iyo wareysiyada waxaan u soo joogay والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.